بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أقول هذا يا أفك موادين كنعسده مالقشده أحمد عثمان قيله يشر كذي سبا وحنا هالكانوا مد سومالان وقصوا بندقينا جواب حقيقة يعطي مكوس ليسن وجنا جوابنا وربحنتي لياب كلا هيد إمانتا وبيشوا هيد أفرتي بيشي أفراد لو كن يسقال يتبن كسب بحدين مدحتوية سومالان وحنا يكون بلا ميسا سيدتنا مركز كواد ما أنت مدحتوية سومالان وحي موادن كان عصدي أحمد عثمان قيله كنت المانتي نين قاطي دلشدة سومالان taasi oo ummadda Soomaaliland la yaab ku noqotay iyada oo ummadda Soomaaliland ogsoon tahay in ganacsade Axmed Cusmaan Geele uu yahay muwaadin reer Soomaaliland ah kana soo jeeda asal ahaan aasaasiyaashii Soomaaliland waxbarashadiisa asaasiga ah ku qaatay dugsiyada Riis iyo Axmed Gurey sidoo kalena haysta dhalashada laba wadan sida uu madaxweynaha Soomaaliland u haysto dhalashada laba wadan ugu horeyn baanka maanta madaxtooyada Soomaaliland ka hadashay magaciisa saxda ahi waa BCIMR oo ay dawladda Djibouti badh ahaan leedahay sida ku cad heshiiska aasaaska saamilida baankaasi bulshada Soomaaliland waxay ogsoon tahay in aanu dunida jirin baan deyn hadiyad u bixiya balse taas bedelkeeda baan kasta uu deymaha ku xidho shuruudo rahan ama hanti maguurto ah oo ka badan deynta uu baanku ganacsadaha siinayo waxaanu cadeynaynaa in sida caadada u ah ganacsatada in ay deynta ka qaataan baananka adduunka waxaana jirtay in aanu heshiis la galnay baankaas aanu soo sheegnay oo magaciisu yahay BCIMR muddo haatan laga joogo 24 bilood ama 2 sano waxa aanu ka qaadanay deyn dhan 20 milyan oo dollar sida sharciga ahna bangigii wuxuu naga dalbaday rahan ka badan deynta aanu rabno kuna taala dalka Djibouti waana aanu ku wareejinay rahankaas bangiga deynta nasiinayay waana aanu ku wareejinay rahankaasi bangiga deynta nasiinayay bishii Abriil sanadkii 2017 waxaana heshiiska rahankaasi laga diiwaan galiyay lagana ansixiyay dawladda Djibouti waxaana heshiiskaasi ku xusnaa in baanku naga hayo hanti maguurto ah oo qiimaheedu dhan yahay 25 milyan taasi oo 5 milyan dheeraad ku tahay deyntaas uu nasiiyay lacagta baanka aan ka qaatay ee madaxtooyadu sheegtay in aanu ku maalgelinay kuna aasaasnay shirkadda Coca-Cola waxaanu baankaasi ka qaadanay sanadkii 2017 sida ummadda Soomaaliland wada ogeedna waxa shirkadda Coca-Cola wadanka laga hirgeliyay sanadkii 2010 waxaana la daahfuray sanadkii 2012 taasi oo meesha ka saaraysa warbixintaasi faraku samayska ah ee ummadda laga hor akhriyay xaqiiqadana ka fog muddo 2 bilood ah kadib waxa dhacday in qoyska madaxweynaha Djibouti ay ku amraan Axmed Cusmaan Geele in uu saamiyo khasab ah ka siiyo shirkadihiisa Djibouti iyo kuwa Somaliland amarkaasi oo uu ganacsade Axmed Cusmaan Geele ku gacan sayray maadaama aanu xaq iyo xeer toona loogu lahayn intaasi kadib markii uu Axmed Cusmaan fulin waayay amarkaasi waxa dhacday in waaran qabasho ah loo soo jaray isaga oo Axmed Cusmaan Geele Djibouti ka maqan Axmed Cusmaan Geele kuma noqon Djibouti maadaama oo uu ogaaday in xadhigaasi lagu doonayo in lagu marsiiyo dalabkoodii intaasi kadib waxa bilaabantay in qoyska madaxweynaha Djibouti ay bililqaystaan 10 shirkadood ee Djibouti uga shaqeynayay oo afartii ugu waaweynaa ay kala qaateen qoyska madaxweynuhu waxaanay kala qaateen kuwan shirkadda Multivision waxa qaatay Tom oo u dhashay dalka Africa qabana Faadimo Ismaaciil Cumar Geele 2
shirkadda Jabuuti Container Freight Station waxa qaatay Nasli Cabdalla Kaamil oo ay dhashay marwada koowaad Marwo Khadraxayd. shirkadda 360 Stephen Doring waxa qaatay Sacad Cumar Geele oo ah madaxweynaha walaalkii. shirkadda Jeep Events waxa qaatay Tolmoon Almis Maxamuud Xayd oo ay Marwo Khadraxayd eedo ruma u tahay. lixdii shirkadood ee kalena waa la xidhay, hantidii dhex taalayna waa la bililaqaystay. intaas waxa dheer hanti qiimaheedu kor u dhaafayo 128 milyan oo iskugu jirta warshado, dhismayaal, dhul, gaadiid, wakaalado, shirkado caalami ah. haddaba maadaama hantida intaas leegi naga maqan tahay, waxaanu isku daynay in aanu raadino cid dhexdhexaadin nagu dhex gasha qoyska Jabuuti, maadaama ay adkayd in aan sharciga kaga qaado hantidayda. waxaana aan isku dayay sidan hoos ku xusan. waxa uu Axmed Cismaan Geele 3 jeer Hargeysa kula kulmay xubno ajaanib ah, kuwaasi oo dhinaca Jabuuti ka siday dhexdhexaadin ah in Axmed Cismaan Geele aqbalo saamigii ay qoyska madaxweynuhu ku amartay in laga siiyo hantidiisa. wuuna ku gacan sayday maadaama uu ahaa mid uu hore u diiday. waxa Hargeysa yimi mas'uuliyiin ka socda Banka Jabuuti ee BCRMI, kuwaasi oo ujeedadoodu ahayd sidii loogu soo celin lahaa deyntooda. waxaana Axmed Geele uu u sheegay in ay hantidii damaanadda ahayd ee ay haysteen mulkiyadeeda la wareegaan una qaataan deyntoodii, maadaama aanu Jabuuti tegi karin waqtigan, una keenaan 5 milyan ee dheeraadka ku ah hantida damaanadda ee ay haysteen kalena saxeexdeen Axmed Cismaan Geele. soo jeedintaasi waxaa diiday mas'uuliyiinta bangiga, iyaga oo ka cabsi qaba in dowladda Jabuuti qaadato hantidaasi ay damaanadda u haystaan. sidoo kale Axmed Cismaan Geele wuxuu u diray qoyska Jabuuti iyo diri dhababa oo uu joogo ugaaska guud ee Ciise, beelaha Ciise, madax dhaqameed iyo aqoon-yahano Somaliland u dhashay, kuwaasi oo jooga dhammaantoodna lagu soo gacan sayday, weji gabaxna kala kulmay. waxaanay dacwad ka furteen mas'uuliyiintii banku maxkamadda Jabuuti. maxkamadiina waxay u xukuntay in ay iibin karaan rahankii ay u haysteen ee dhammaa hantida 25 milyan ee dollar ah. waxaana xaraashka hantidaasi lagu iclaamiyey joornaalka magaciisu yahay Nation ee dowladda Jabuuti leedahay, oo nuqul ka mida aan halkan ku hayno, soona baxay taariikhda ah 17 December 2018. intaasi kadib waxay mas'uuliyiinta banku Hargeysa la yimaadeen in ay mar labaad isla xukunkii ka fushadaan Somaliland. waxaana ogolaatay xukuumadda Somaliland sida ku cad saxiixyada agaasimayaasha arrimaha dibadda, cadaaladda, xeer ilaalinta Somaliland. waana xukunka uu waraaqo la soo xaday ku sheegayo afhayeenka madaxweynaha Somaliland. waxaase la yaaba inuu afhayeenku yidhaa maxaa u aragteen xukunka na khuseeya ee la doonayay in si qarsoodi ah nalagaga fuliyo maxkamadaha Somaliland. shirkad ahaan waxaanu ka xunnahay in madaxtooyada Somaliland ku tilmaanto salaadiinta Somaliland iyo haldoorkeedaba dad warmooga oo la khaldi karo. Axmed Cismaan Geelena ku go'aamiyaan inuu yahay tuug hanti soo dhacay kulana soo gabanaya Somaliland, iyada oo maxkamadaha Somaliland ku xukumin wax dambi ah. sidoo kale waxaa xusid mudan in madaxtooyada Somaliland ku eedeysay Axmed Cismaan Geele in uu nabadgelyo darro ka abuurayo Somaliland. waxa aanu ku jawaabaynaa suurtagal ma tahay in nin ka mid ah maalgashadayaasha ugu waaweyn Somaliland in uu nabadgelyo darro u soo jiido hantidiisa iyo maalkiisa intaas leeg ee wax ku ah nabadgelyada iyo xasiloonida Somaliland haysato. guntiga gunaanadkii
waxaan ummadda Somaliland u sheegaynaa in Axmed Cusmaan Geele uu yahay dawbixiye cid kasta u qabsoomaya xukuumadda Somaliland waxaan ka codsanaynaa inay ilaaliso xuquuqda muwaadinka ee dastuurka Somaliland siiyay hantidiisa 128 milyan ee kor ku soo sheegnayna ay uga soo qaado qoyska madaxweynaha Djibouti ee sida sharci darrada ah kaga haysta ugu dambeyn waxaan u mahad celinaynaa cid kasta oo u damqatay dulmiga lagu sameeyay ganacsade Axmed Cusmaan Geele wabillahi tawfiiq wad mahadsantiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaah.